بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبله isaga oo ku hadlaya madaxda golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen isaga oo garowshiyo ka siiyay tabashadii la xiriirtay arintii ka soo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya insha Allah waxa uu maanta shir gudoominaya shirkii oo madaxdu ay wada joogaan Muqdisho marka laga reebo madaxweyne Goodlaw ka maqan shirkaasna insha Allah waxa la isku wareysan doonaa oo laga arinsan doonaa arimihii muddada bisha ahayd howlihii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin iyo waxa hore loogu soconayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa ka go'an in uu had iyo jeer isu keeno oo qof kasta oo maaragtay tabasho qaba uu la fariisto geed gaaban iyo geed dheer u fulo sidii ummadda Soomaaliyeed la isugu keeni lahaa isla markaana dalkan doorasho u aadi lahaa ra'iisul wasaaraha maaragtay arintaasi muhiim gaar ah iyo muhiimad gaar ah ay u leedahay insha Allah shirkiina maanta uu bilaabanaya madaxda oo dhan oo ay ka soo wada qayb galaysaa madaxweyne Goodlaw waxa uu kaga soo qayb gali doonaa khadka fogaan aragga ee Zoom waxaan rajaynaynaa in shirkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan ummadda Soomaaliyeedna ay soo dhaweyso